Asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada kulmiye channel qaybtiisa sportska. Waxaan kusoo qaadan doonaa kulan aad u xiiso badan oo la sugayo dhexmaray kooxaha Manchester United iyo kooxda Burnley. Manchester United ay u safartay garoonka kooxda kubadda cagta ee Burnley halkaas ay ku ciyaarayeen kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Man United ayaa maskaxda ku haysay haddii kulankan badiso inay horyaalka Premier League hoggaanka u qabanayso. Manchester United ayaa leh 36 dhibcood caawa oo ay ka badisay kooxda Burnley halkaas ay hoggaanka ugu qabatay horyaalka Premier League tan iyo markuu bilowday xil ciyaareedkan. Kooxda Man United ayaa ka soo kacday kaalmo aad u liita sanadkan iyadoo xil ciyaareed ku bilowday qaab aad u liita ku bilowday xil ciyaareedkan, balse kulamadii ugu dambeeyay Man United ayaa aad loola yaabanaa oo kulamo badan badisay. Sidoo kale waxaa la sugayaa kulamo kale oo horyaalka Premier League in la ciyaaro, balse hadda xilligan la taagan yahay kooxda Manchester United ayaa hoggaanka u haysa horyaalka Premier League oo kooxda Man United iyo Burnley kulanka ciyaareen qaybtiisa hore ayaa ku soo gabagaboobay ever halka qaybtii labaad ciyaarta la isugu soo noqday ay Man United u suurta gashay inay hesho goolka ay ku gaareen guusha kaas oo u dhaliyay ciyaaryahankooda qadka dhexe ee Paul Pogba. Kulankan ayaa muhiim u ah kooxda Manchester United maadaama ay qaban karayaan hoggaanka horyaalka Premier League, saasoo tahay in kulanka ay la ciyaareen kooxda Burnley ay u suurtagelisay inay hoggaanka horyaalka u qabtaan, halka kooxda Liverpool ay ku soo xigtana ay leedahay 33 dhibcood. marka la fiirsho kulamadii wada ciyaareen ay wada siman yihiin, saas Man United hoggaanka horyaalka u qabatay 3 dhibcood. balse su'aasha waxay tahay Man United hoggaanka ma sii haysan kartaa kulanka horyaalkan. sanadkan wax walba waa la arkay kooxo badan oo aan laga filaynin horyaalka Premier League inay kaalmo fiican ka gaaraan, waa la arkay inay kaalmo fiican soo gaareen. waxaa kamid ah kooxaha Aston Villa, waxaa kaloo kamid ah kooxda loo yaqaano Southampton iyo kooxo kale oo horyaalka Premier League oo aan la saadaalin inay meel fiican gaarayaan sanadkan ayaa meel fiican ku jira horyaalka Premier League. kooxaha dabka yar aan shiilaynin sidoo kale waxaa kamid ah kooxda Leicester City oo ayada sanadkii hore horyaalka meel fiican kaga dhameystay, sanadkanna ay kaalin fiican kaga jirto. sanadkii hore waan ogeynay kooxda Leicester City waxaa kaalinta booska afraad ka baxay kooxda Man United ayagoo aad ugu dhawaa inay ku dhameystaan top 4 oo usoo baxaan Champions League, balse kulanka ugu dambeeyay horyaalka Premier League la ciyaaray ayaa u suurta gashay kooxda Man United inay ka gasho kaalinta afraad kooxda Leicester City. balse sidoo kale waxaa la leeyahay kooxda Man City waa gambsan oo sugaysa fursadaha iyo kulamada u haray oo u baaqiga ah inay badiso si iyo hoggaanka ayadana horyaalka Premier League ugu qabato. kooxo kale ayaa jira sidoo kale ay kamid yihiin kooxda Tottenham oo ayadana u harsan yihiin kulamo, balse ma soo gaari karayso kooxda Man United oo caawa hoggaanka horyaalka u qabatay. balse kulamo aad u cajiib ah ay ciyaartay kooxda Tottenham oo u suurta galiyay inay kaalintaas soo tigsato, balse barihii u dambeeyay xaaladeeda maysan fadhin, marba kulan bay badinayeen kulana barbarac bay galayeen. laakiin kulamadii horyaalka ay ku bilowdeen iyo kulamadii dhexe ciyaareen aad bay ciyaar cajiib u soo bandhigeen. ayadii Chelsea, Tottenham iyo Chelsea ayaa ku tartamayay horyaalka hadda ay ku tartamayaan kooxaha Liverpool iyo Man United, walow aan la dhayalsan karin kooxda Man City oo ayadana kaalin fiican kaga jirta, inkastoo kulamo fiican ay u harsan yihiin, kulamo dhowr ay u harsan yihiin, kulamada haddii badisana kaalin fiican soo tigsan karaysa. marka horyaalka aad buu u adag yahay. marka waxa la isweydiinayaa su'aasha waxay tahay Man United ma sii xajisan kartaa inay sii hayso hoggaanka? waqti xaadirkan inta badan lama arko kooxaha Premier League ee hoggaanka u haya inay waqti badan ay hoggaanka sii hayaan ama qaab ciyaareed ay ku jiraan waqti xaadirkan. waxaa la leeyahay ciyaartoyda waxa ku dhici kara COVID-19, sidoo kale waxaa la leeyahay ciyaartoyda dhaawac baa wajihi kara. marka waqtigan lagu jiro ee cudurka coronavirus waxyaabo badan baa la arkay. taageerayaasha garoonka maqan miyaa saameyn ku leh oo mataqaan u suurta gelinaya kooxaha qaar inay mataqaan badiyaan, kooxaha qaar ay badi kari waayaan, sida Liverpool oo kale oo sheego kooxooda taageerayaashooda markay garoonka joogaan in loo dareemo saaid. sidoo kale marka la fiirsho away markay yihiin oo kale taageerayaasha Liverpool oo laga dareemo garoonka, waxaa la is leeyahay kooxaha Premier League ee la tartamaya kooxda Man United kooxda Liverpool oo ka maqan taageerayaashooda caawi jiray sanadkan ma ka faa'iideysan doonaan maqnaanshaha taageerayaasha Liverpool ee ka maqan garoomada inay ku qaadaan horyaalka Premier League sida kooxaha Man United iyo kooxda Manchester City. sidoo kale marka fiiriso kooxda Man United waxaa u jooga ciyaartoy dhowr ah, marka laga tilmaami karo waxaa kamid ah ciyaaryahanka kooxda aadka u wada ee aad ku dadaala ee doonaya kooxda markasta inay badiso inuu yahay ciyaaryahanka Bruno Fernandes oo tan iyo markuu kusoo biiray kooxda
Manchester United sanad ka hor wacdaraha uu dhigay goolasha uu dhaliyay assist uu sameeyay aad loola yaabanaa. Kooxda Man United oo caawa hoggaanka qabatay waynu arkaynaa halka ay tiigsato iyo meesha ay gaarto, balse kulamada horyaalka soo socday Premier League ayaynu ku arki doonaa. Inkastoo kulamo dhowr ah oo adag ay kooxda kusoo aadi doonaan kooxda Man United, sida Liverpool ay la ciyaari doonaan, kooxa weyn sanad bishan January ay la ciyaari doonaan kooxda Arsenal, bal waynu ka warsugaynaa kooxda Man United 5 kulan ay soo socda ama 6 kulan ay soo socda ma badin doonaan horyaalka hoggaanka ma sii hay doonaan. Barnaamijka ciyaarahan ku faaqidayno insha Allah waxaanu kaga hadli doonaa kulamada kale ee soo socda horyaalka Premier League la ciyaari doona, horyaalada kale caalamka Spain, Germany, sidoo kale waxaanu kaga hadli doonaa horyaalada kale ee sida Champions League oo la ciyaari doono bilaha soo socda. Sidoo kale waxaa jiri doona horyaalka Serie A iyo kan France League 1. sidoo kale insha Allah daawadayaal waa barnaamijka ciyaaraha oo aan idin socodsiinayay. intaan barnaamij lamid ah ku kulmi doono waxaan igu dhaafayaa sidaas iyo nabadino.